بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa farxad ii ah inaan halkan ku soo gudbiyo sanduuqa horumarinta Garowe degmada Garowe sanduuqaas oo dakhligiisa uu ka imaanayo dadweynaha Garowe iyadoo oo la saarayo servisyada loo qabto sida korontada biyaha hoteelada tigidhada diyaaradaha telefoonka iyo waxyaabaha kale oo dadka ka dhaxeeya iyo jaamacadaha iyo iskuulada sare shirkay ismada ay ka soo qayb galeen lagu qabtay hotel New Race ayaa lagu go'aamiyay dadkuna ay ku indoos gareeyeen in ay taageersan yihiin in la qaado lacagtaasi waa $1 oo la saarayo serviceka dadka loo qabto ama adeegyada bulshada loo qabto sida korontada biyaha iyo telefoonada halka $na wuxuu ahaan doonaa $1 oo loo gooyay oo gaar u ah horumarinta caasimadda waxba lagama qaban doono hawlaha dawladda hoose maamulkiisana wax shaqo ah oo dawladda hoose ay ku leedahay ma leh waxa loo qabtay guddi maaragtay dad mudanayaal ah ka kooban aqoon-yahanada xirfadleyda haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kale ee muhiimka ah ee bulshada guddigaas oo hadda qayb ka mid ah ay la fadhido qaybtii kalena insha Allah taala ay imaan doonto waxaan marka hadda rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo warqadii sharciga ahayd aan ku magacawnay guddiga horumarinta degmada Garowe ku isimada gobolka Nugaal oo gudoomiyaha gobolka Nugaal og shirkadaha adeega kala duwan bixiya ee Garowe og bahda waxbarashada degmada Garowe ujeedo magacaabid guddiga sanduuqa horumarinta caasimadda mudanayaal iyo marwooyin waxa farxad ii ah inaan magacaabo guddiga maamulka sanduuqa horumarinta caasimadda Garowe kaas oo aan filayo inuu wax weyn ka tari doono baahiyaha asaasiga ah ee bulshada guddigu waa guddi xul ah aamin ah isla markaasna sumcad wanaagsan ku leh bulshada dhexdeeda mudanayaal guddigan waxay u xil saaran yihiin dhammaan hawlaha khuseeya qaaraan ururinta kaydinta mafruudda xisaabaadka iyo waliba ogolaanshaha kharashaadka lagama maarmaanka ah ee ku qotoma qorshayaasha horumarineed ee caasimadda sida amniga nadaafadda caafimaadka waxbarashada biyaha iyo korontada kaabayaasha dhaqaalaha iyo gurmadka masiibooyinka degdega ah xubnaha guddigan waxaa ka mid ah Dr. Cabdirasaaq Jaamac Maxamed Dr. Cartan Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf Cismaan Maxamed Cali Qaroofey Axmed Abshir Surato Axmed Macalin Ibraahim Bandiiriye Maxamuud Ismaaciil aw Cismaan Maxamed Salaad Weyrax Injineer Saacadaale Maxamed Cali Siciid Guumbe iyo Xuseen Xaaji Yuusuf guddigani waxay ku shaqayn doonaan xeer gaar ah oo loo sameyn doono insha Allah labada xubnood ee ka tirsan golaha deegaanka waa xubnihii lahaa fikirka sanduuqa iyo shaqooyinkii ka dambeeyay ee la xiriiray Allah mahad leh aad baa u mahadsantihiin guddigan magacyadoodu waa kuwaas